الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. قدوميها محكمة سرة رئيس الوزراء كحيجينكا وزيرك عدالة كحيجينكيس وزير الدولهيس بعض قرصورك قرصورياشا حير إلاليها ururka nootayooyinka ururka qareenada xildhibaanada labada aqal howlwadeenada wasaaradda cadaaladda dhammaan marti sharafta assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. ra-iisul wasaare ku-xigeen waxa qabadka wasaaradda cadaaladda la sheegay adigana qiib weyn baa ka ahayd. waxaad ahayd qareen mise lawyer xafiiska ra-iisul wasaaraha ka tirsan oo ra-iisul wasaare ku-xigeen ah, wax badan talooyin iyo tusaalena ka dhiibtay. run ahaantii waxyaabo badan baa la qabtay markaan aan wasaaradda imaaday. haddii aan wax yar ka taabto waxaa ugu horreeyey qaab dhismeedka iyo shaqaalaha tayadooda in aad iyo aada loo kordhiyo. wasaaradda qaab dhismeedkeedana waa la habeeyey, tayada shaqaalaha joogtana aad baa loo tababaray. sababta oo waxaan aaminsanaa waxa ugu muhiimsan oo waxa dhisi karo dad inay yihiin, kadibna markaas kadibaa dal la dhisi karaa. taas alxamdulilah howlwadeenadan aad meeshii joogaan aad u jeedo waa dad khubaro oo wasaaradda soo saartay. qodobka labaad waxaan diiradda saaray dib u habeynta garsoorka oo laba qeybood ah. qeybta maxkamadaha ra-iisul wasaare waxaan la soo shaqeeyey laba guddoomiye maxkamadda sare, laba xeer ilaaliye iyo saddex guddoomiyaha maxkamadda rafcaanka iyo maxkamadda gobolka. waad dareemi kartaa reformka iyo dib u habeynta garsoorka maray. dib u habeyntaas waxaa faa'iido dhalisay dhismaha garsooriyaasha iyo tababarkooda iyo aqoontooda iyo dhismahaada aad u jeedid oo garsoorka bahda garsoorka ay runtii aada ugu faani karto. guddoomiyihii horena ka soo shaqeeyey, guddoomiyaha maxkamadda sare hadda joogay iyo tiimkiisna si xowli ay u shaqeeyeenoo wax badan ay ku soo kordhiyeen. qiibta labaad oo garsoorka aan waxa ka qabtay waxay ahayd qeybta la yiraahdo xalinta khilaafaadka dadban oo xafiisyo laga furay dowlad goboleedyada iyo gobolka banaadir. waxaa keesas xal laga gaaray 13,000 oo kees ya xal laga gaaray xalinta khilaafaad. taas haddaan ka gudbo tan saddexaad, cadaaladii oo la baahiyey dowlad goboleedyada iyo dowladda federaalka loona hiigsaday kaalmo sharciyeed iyo legal aid waxa la yiraahdo. taasna waa baahday sidii klibka hadda lagu sheegay. tan saddexaad aan diiradda saaray inaan dhiso xafiis istiraatiijiyada siyaasadda iyo shuruucda iyo heshiisyada diyaarinayo, kuwaas oo diyaariyey 72 hindisi sharciyeed loo keenay, kuwana dib u eegis ku sameeyeen inay sameeyeen tirakoob oo shuruucda dalka markii xorriyada qaadanayna iyo hadda dhexdood waxaan haynaa 714 sharci oo tirakoobkooda la diyaariyey. waxaan kale diiradda saarnay in dib u eegis aan ku sameyno dib u habeyn ciidamada usluubta iyo reformkii dowladda socday in la qalabeeyo, in maaragtay la tirakoobo, biometricii loo sameeyo, iyo in xabsiyada dalka la bilaariyo. dowlad goboleedyada kulli xabsiyaal waaweyn yaan ka dhisnay, gobolka banaadir ku jiro oo dhismahooda qaar socdo. halka gobol oo naga maqan hirshabeelle waay. hirshabeellena waxaan ugu tegi doonaa inuu dhismahaas dhammaystiro oo faan u helo wasiirka iga dambeey. xiriirka oo wasaaradda samaysay dowlad goboleedyada, wasaaradaha dowlad goboleedyada iyo dowladda waa isla shaqeeyaan. xafiisay inta ku leeyihiin si director isula shaqeeyaan. internationalka xiriirka aan la leenahayna aad buu u wanaagsan yahay. marka xiriirkaasna in la xoojiyo aad baan ugu shaqeynay.
waxaa kale aad iyo aad looga shaqeeyey in xafiis oo anshax wanaaga iyo dowlad wanaaga la furo shuruucdii soo baxdayna waa la socdaa istiraatiijiyadii iyo sharciga la dagaalanka musuqmaasuqa xafiiskaas oo aad iyo aad u shaqaynayo hadda xafiiskaas oo hadda barnaamijka deen afista qayb ka ah oo la rabo in la sii wadana aad iyo aad buu u shaqeeyey waxaan kale diiradda saarnay caruurta iyo dadka maaragtay tabaalaysan ilaalintooda child protection juvenile justice iyo shuruuc kale rehabilitation waan sameynay waxaa wasaaradda qayb ka tahay dib u xasilinta dalka iyo goobaha la xoreeyay in la geeyo maxkamad xeer ilaalin in la geeyo urur qareene iyo legal aid kaasna wasaaradda arrimaha gudaha yaan kala shaqaynaynaa arrintaasna aad bay u socotaa waan arrin hadda loo baahan yahay maadaama dalkeena la xoreynayo aniga maadaama gaashaandhiga tagay aad baa loo baahan yahay tanna in laisku xiro oo shaqadaas la qabto waxaa kale hadda miiska saaran oo aad iyo aad loo rabaa in la dhammaystiro dhismihii wasaaradda cadaaladda iyo wasaaradda diinta oo qaafta oo funds in lacag wasaaradda u soo raadisay la helay la dhagax dhigay insha allahu kaasna dhammaystirkiisa ya lagaa rabaa waxaa kale oo wasaaradda qabatay mashruuc yaro oo scholarship program la yiraahdo loogu saaro ardayda la soo saaro arday oo garsoorka la shaqayn doonto oo loo baahan yahay mashruucaas oo asigana arday badan oo Soomaali ah waliba aan dooranay dad oo masaakiin oo iska bixin karin jaamacad kuwaas oo dawlad goboleedada afarta dawlad goboleed la siiyay kuwaas oo numberkooda gaarayo 210 dawlad goboleedada loo qiibiyay kuwaasna kuwii ugu horeeyay markaan imaanaynay la qaatay hadda ay qalan jibinayaan ayagana garsoorka qiib yay ka noqonayaan ra'iisul wasaare recommendation-ka ana wasiirka ugu tagayo golihii adeega garsoorka meel fiican aan geynay dhamaystirkiis waa loo baahan yahay waxaa way guddiga la dagaalanka musuqmaasuqa dhamaystirkiisa yaa loo baahan yahay baarlamaanku yaala wasaaradda dhismaheeda waa bilowday dhamaystirkiisa yaa laga rabaa xiriirka caalamiga iyo kan maxalliga oo garsoorkana inaad si wanaajisa la rabaa xafiisyada xalinta khilaafaadkana aad bay u baahaneen ayadana inaad wax la qabataa la rabaa run ahaantii jawhar xabsigii u dhinaa oo dawlad goboleedada dhan la soo sameeyeen funds inaad u raadiso oo aad u dhistaa loo baahan yahay waxaan ku leeyahay dad la soo tababaray waa kula joogaan qorshayaal oo ballaaran la diyaariyay waad haysataa anigana inkastoo email kale la igeeyay diyaar baan kula ahay inaan kuga caawiyo marka waxaan u hambaliyeynayaa oona u mahadcelinayaa oo aan kala reebaynin baxda cadaaladda kulligeeda yacni ma kala reebay kulligiina waa mahadsantihiin waa ila soo shaqaysteen sharafaad leedihiin haddii aan waxa iga tabanaysaan muddadii shaqada lagu jiray waa dhici karta qofku markuu shaqada ku jiro inay dad waxa ka taban doonaan ani xaggayga waxaa waye cafis iyo musaamaxa iga tihiin idinkana inaa cafis iyo musaamax idinka noqdaan rabaa waana salaamintiina asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu